بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مeel kastood naga dhahanaysaan halkani waa janalkeennii cagta iyo dunida CID Pro TV ee wararka wareysiyada iyo waxaan u soo joogay qaybtan iyadaahi waa qayb ka mid ah qaybihii hore aad u daawateen intiinii fursadda u heshay waxaan u soo joogay taasoo ka dhigan anigoo awriye maxamed axmed xaaji cagmadhige wax badanna ka shaqeeyay maansha Allah meediyaha ama warbaahinta dalka Soomaaliyana xoogaal oo ahaa ayaan waxaan soo qaadanaynaa sida barnaamijyadeena horeba aad ula socoteen oo qaybihiinii dhinaca siyaasadda daawaday iyo dhinaca waxbarashada iminkana aanu eegayno dhinaca dhaqaalaha iyo Soomaaliya xagga kalluumaysiga xagga beeraha iyo xagga xoolaha intaba Soomaaliya tan iyo intay xorriyadda heshay iyo ka hor iyo kadib si aad iyo aad ayaa Ilaahay ugu manaystay barwaaqo dhinaca xoolaha dhinaca beeraha iyo dhinaca kalluumaysiga dawladihii jiray ee 60kii bilowday iyo dawladihii militariga iyo intii dambe ee colaadii kadib dawladaha ku meel gaarka iyo federaalkuba waxay si aad iyo aad ugu dadaaleen qaabkii sidii looga faa'iideysan lahaa guud ahaan khayraadka faraha badan ee Allah awood leh uu siiyay dalka Soomaaliya iyo juqraafi ahaan Soomaaliya halka ay ku taalo oo ah dhinaca geeska Afrika Soomaaliya waxay leedahay xeeb aad u dheer oo badweynta Hindiya oo 330 kilomitir lagu sheegay taasoo ka dhigan xeebta labaad ee ugu dheer qaaradda Afrika wadamada ku yaala marka laga reebo dalka South Africa xeebta badda cas ayaa jirta oo iyaduna ay ka qayb tahay marka la fiiriyo dalka Soomaaliya qaybihiisa dhinaca waqooyi bari iyo dhinaca waqooyiga intaba dhulkaas waa dhul barwaaqo xagga kalluumaysiga dad badan ayaa ka faa'iideysan jiray oo Soomaaliyeed oo ilaa haatan ka faa'iideysta oo kalluumaysato aha ab jiil Soomaaliya dhinaca kalluumaysiga marka la fiiriyo dawladihii rayidka iyo dawladii dhexe militariguba aad ay ugu dadaaleen sidii fursad loo siin lahaa bulshada warshado ayaa jira dhowra oo dhinaca kalluumaysiga oo soo saara kadibna loo iibgeeyo dibadda waxa tusaale loo soo qaadan karaa warshadii kalluunka ee ku tiilay Laasqoray oo ahayd warshad kalluunka lagu farsameeyo uu yahay midaan cid laga soo baryin ee ahaa kalluunkii marka la fiiriyo guud ahaan badaha Soomaaliya ee baa ku manaystay dekadaha ku yaala Soomaaliya marka laga bilaabo dekadii Berbera marka lagu xijiyo dekada Boosaaso marka lagu xijiyo dekada Hobyo marka lagu xijiyo dekada dhinaca Muqdisho marka lagu xijiyo dekada Marka marka lagu xijiyo Kismaayo dekadahaasi waa dekadaha la oran karo way ugu waaweynay walow ay jiraan dekada kale oo doonyuhu ay isticmaali jireen oo guud ahaan ku teedsan ee dalka Soomaaliya intii dambana qaar badan ay horumar sameeyeen marka la fiiriyo dekadahaas waxa laga dhoofin jiray xoolo qaarkood xoolahaasi waa kuwama Soomaaliya Ilaahay wuxuu siiyay fursad geela iyo looda iyo ariga dadku ay ku dhaqdaan oo waxa ay dhaqdaan oo ay nolol maalmeedka ku maareeyaan ka sakow ay qaarkood fursad u heleen arigoodii iyo marka la fiiriyo geelii iyo xoolihii in looga faa'iideysto suuqyada dhinaca gudaha iyo dibadda suuqyada waaweyn ee ku yaala guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya dadku xoolaha ay ku kala iibsan jireen qiimo iyagoo ay markaa isku afgarteen dad dalaaliina ayaa u dhaxayn jiray waxaa jira shirkado iyagoo xoolaha dhoofiya oo arigu ugu badnaa oo iyaguna tagi jiray gobollada iyo degmooyinka dalka xoolaha ka iibin jiray maxjarrada kala duwan geyn jiray kadibna sidaas looga dhoofin jiray Soomaaliya oo la geyn jiray wadamo bariga dhexe inta badan ku yaala dekadaha ugu waaweyn ee xoolaha Soomaaliya sida aadka looga dhoofin jiray waa dekada Berbera ee iyadoo ku tiilay markaas gobolkii waqooyi galbeed ee dalka Soomaaliya dekada magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ariga si aad iyo aad ayaa isagana looga dhoofin jiray xoolaha marka la fiiriyo Soomaaliya ka yimaada marka la barbar dhigo xoolaha kale ee la geeyo bariga dhexe iyo wadamada kale way ka duwanaayeen xagga muuqaalka iyo aragtida maxaa yeelay cawska iyo waxay cunayaan ma aha wax markaasi macmala ee waa wax Ilaahay uu siiyay fursad dhir ka baxday dhulka oo roob ku baxday ama webi ku baxday oo markaa ka faa'iideysanayeen taasi waxa ay keentay dad badan oo Soomaaliyeed inay fursad u heleen xoolaha inay dhoofiyaan muddo dheer iyo muddo dhow intaba wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa jirtay bangiyadii ayaa jiray mashruuci suuqgeynta xoolaha ayaa jiray waxaasoo dhan waxay ahaayeen kuwa u maamula xagga maamulka iyo nidaamka iyo waraaqaha iyo la socodka gudaha iyo dibadda iyo xagga maareynta lacagta adag ee dhinaca bangiyada dad badan oo Soomaaliyeed ayaa fursadaasi helay intii ay dawladnimadu ay jirtay dalka Soomaaliya markaad fiirisid dhinaca warshadaha dalka Soomaaliya warshado badan ayaa ku yeelay oo intooda badan khayraadka dalka ka baxa farsameyn jiray oo warshadeyn jiray taas waa fursad looga mahad celiyo Allah awood leh Soomaaliya markaad fiirisid 18 gobol ayay ahayd kasoo bilow gobolka Jubbada Hoose gobolka Jubbada Dhexe gobolka Gedo gobolka Bay gobolka Bakool gobolka Shabeellada Hoose gobolka Banaadir gobolka Shabeellada Dhexe gobolka Hiiraan gobolka Galguduud gobolka Mudug gobolka Nugaal gobolka Bari gobolka Waqooyi Galbeed gobolka Sool gobolka Sanaag gobolka Togdheer iyo gobolka Awdal maansha Allah goboladaasi waxay lahaayeen 18 ilaa iyo 80 iyo dhowr degmo oo intuba ay lahaayeen wax kasta oo gobol kasta iyo degmo kasta u lahaa taasina Allah awood leh fursad uu siiyay ahayd dadka Soomaaliyeed
warshadaha Soomaaliya ku yiilay ee caanka ah waxaa la soo qaadan karaa xagga Kismaayo markaa tagtay dhinaca koonfurta warshadii hilibka Balfiiri taariikh ayay lahayd oo hilibka ayay warshadeyn jirtay taasoo ahayd fursad gudaha iyo dibadda si aad looga faa'iideysan jiray warshadaha kale waxaa ka mid ahaa warshada soo saarta sokorta ee dhinaca Mareerey oo iyaduna dhinaca koonfurta ku tiilay oo iyaduna ahayd warshad ka dambeysay warshadii asal ahaan ee sokorta ee Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo magaalada Jowhar magaalada Afgooye oo Muqdisho u jirtay 28 kiiloomitir walow hadda ay fiday Muqdisho waxaa ku tiilay warshada dhinaca khudradda Etop ayadana waxyaabaha lagu farsameeyo guud ahaanba Soomaaliya beeraheeda ay ka bixi jireen dibadda laga keeni jirin waa fursad Allah awood leh oo Soomaalida uu siiyay warshada caanaha ayaa ku tiilay magaalada Muqdisho meel aan ka fogeyn isbitaalka xoogga ee agagaarka Tarbonka caanaha dhalooyinka lagu shubi jiray litirka iyo nus litirka ay ahaayeen caano aad u macaan oo si aad looga faa'iideysan jiray ay ahaayeen waxaa ku tiilay magaalada Muqdisho meesha lagu magacaabo agagaarka kontaroolka dhinaca Afgooye warshada daawada oo iyaduna caan ahayd oo daawadeedu ay ahayd daawo cajiib oo marka la fiiriyo soo saaristeedu ay ahayd mid science ahaan aad iyo aad u sareysay aqoonta iyo kartida dawladda Soomaaliyeed ee dhexe ayaa hirgelisay warshadaas daawada waxaa ku tiilay magaalada Muqdisho warshada baastada lagu farsameeyo ee lagu sameeyo oo iyaduna ku tiilay dhinaca Yaaqshiid iyo agagaarka kontaroolka dhinaca Balcad waxaa ku yiilay warshada galeyda oo ku tiilay magaalada Muqdisho wadada warshadaha waxaa ku tiilay warshada dhinaca maacunta oo ku tiilay iyaduna warshadaha waxaa ku tiilay warshada sigaarka iyo taraqa oo iyaduna wadada warshadaha ku tiilay warshadahaasi waa warshadaha ay dawladdu ay maamuli jirtay waxaa jira warshado ayaguna gaar loo lahaa oo ay kamid yihiin warshada marka la fiiriyo oomada ee Bayl warshada Alba ee cabitaanka warshada biyaha Banaadir Aqua Minerale warshada barafuunada iyo warshado kale oo markaas aanan xusuusan karin markaan idin la hadlayo anigu waa Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhiga macnaheedu ma aha waxa aan sheegayaa dhammaantood inay ahaayeen wixii barwaaqada ah ee ka jiray Soomaaliya laakiin qaybo kamid ah ayaanu xuseynaa iyo dalku sidoo uu ahaa dal barwaaqa xagga beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga bal Jowhar fiiri waxa ku tiilay warshadii sokorta qasabka lagama keenin Afrika iyo Asia Latin America iyo Europe waxa uu ka baxayay isla gobolka Shabeellada Dhexe oo tareeno ayaa soo qaadi jiray xilligii dawladnimada ka horna way jirtay oo xilligii kadibna si aad iyo aad ay warshadaas heer u gaartay oo ay sokorta soo saari jirtay qayb kamid ahina Snaibiyaza xagga cadarada iyo kabaha iyo waxyaabo kale oo lamid ah ka soo tag Jowhar xamar soo aad oo maxaa u dhaxeeya degmada Balcad waxa ku tiilay warshadii dharka oo soo saari jirtay dharka noocyadiisa kala duwan waxaan si gaar ah u xusayaa aan xusuusto anigoo Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhiga oo arday ahaa in dharka ardada ee iskoolada shaatiga cad iyo surwaalka dabagaabka ee kaakiga dugsiga hoose shaatiga jaalaha ah iyo surwaalka kaakiga ee dugsiga dhexe shaatiga cad iyo surwaalka kaakiga ah ee dugsiga sare intaba inay soo saari jirtay warshada dharka ee Balcad welibana ay soo saari jirtay dharka kale noocyadiisa kala duwan waxa la mahadiya saacada aan idin la hadlayo in ay soo gaartay warshadu dhismaheedii iyadoon wax dhibaato la geysan laakiin ay dayactir u baahneed Allah awood la ka sokow waxaan u mahad celinayaa dadka deegaanka gobolka Shabeellada Dhexe ee degmada Balcad oo aad ugu dadaalo odayaashoodii waxgaradkoodii iyo aqoon-yahankoodu in la ilaaliyo fursadaas iyada ah Soomaaliya marka la fiiriyo xagga warshadaha marka la fiiriyo xagga beeraha marka la fiiriyo xagga kalluunka marka la fiiriyo xagga xoolaha si aad iyo aad ayay u tilmaaneed oo waxay ahayd mid waliba ay la kaashan jirtay meelaha qaar mashaariicda dalalka dunida waxaa jiray bal eeg mashruuc la yiraahdo mashruuca Faanoole oo dhinaca Jubbooyinka waxaa jiray mashruuca dhinaca beeraha oo la yiraahdo mashruuca fidinta beeraha oo ku teedsanaa guud ahaanba dhul beereedka waxaa jiray mashruuca Mugambo waxaa jiray marka la fiiriyo Libsoma iyo Iraqsoma iyo Romsoma maxaa laga wadaa Libsoma waxa laga wadaa waa mashruuc beereed oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Liibiya Romsoma maxaa laga wadaa waa mashruuc u dhaxeeya dalka Romania iyo dalka Soomaaliya Iraqsoma waa mashruuc u dhaxeeya Iraq iyo Soomaaliya dad badan ayaa ka faa'iiday dad badan ayaa qalab helay dad badan ayaa shaqo ka helay taasi waxay ahayd dalka Soomaaliya inuu ahaa yacni mid aad iyo aad horumar u sameynaya marka la fiiriyo qaybaheeda kala duwan ee xagga dhaqaalaha iyo guud ahaanba wax soo saarka laakiin culayskii yimid dagaaladii dhacay 1991kii waxay keeneen habac inuu yimaado oo meesha ay ka baxaan adeegii guud ee xagga dhaqaalaha xagga beeraha xagga kalluumaysiga laakiin way jirtaa in dadkii caadiga ah wali ay dhulkoodii beeranayaan maxaa yeelay dhulku waa barwaaqo beeruhu laba nooc ay ku baxaan beeraha biyaha webiga Jubba iyo Shabeelle oo webigaasu ilaa uu maro gobollo dhowra oo ilaa biyaha uu badda ku shubo si joogta ayaa beeraha looga waraabsadaa
bal fiiri labada shabeelle fiiri bal fiiri jubbooyinka ilaa hiiraan shabeelle iyo jubba maraya ilaa luuq iyo dhulka ilaa baardheer ilaa laga tago goobweyn iyo halkaa ilaahay baa barwaaqadaas keenay dhulka qaarna wuxuu ku bixi jiray dhinaca maxay dhinaca roobka ayuu ku bixi jiray Soomaaliya dalag kala duwan ayaa jiray dhulku barwaaqo ayuu ahaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa barwaaqadaas inay noo noqoto mid sii siyaada marka ka dambaysa qaybtan iyada ah xaqii barwaaqada badalka uu ku maneystay kalluumaysiga beeraha iyo xoolaha intaas ayaan ku soo gabagabeynayna waxaad kala socoteen cagta iyo dunida CID Pro TV wararka iyo waraysiyada iyo waxaan u soo joogay Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige iyo bahda guud ahaanba ka shaqeysa CID Pro TV ayuu isku duuban wuxuu idin leeyahay wassalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh